Asalaamu calaykum asxaabay, soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Sidaynu wada ognahay, Haaruun iyo Maaruun dadka waxay bari jireen sixirka. Weliba oo ka dalbadan inuu baro sixirka, waxay ku dhihi jireen qofkii bartaa sixirka masiirkiisu wuxuu noqon doonaa naar iyo cadaab daran. Sida ay tahayna, iyagoo Haaruun iyo Maaruun sida ugaga digay barashada sixirka, ayay Haaruun iyo Maaruun ka dalban jireen inay baraan sixirka. Culummada badi waxay isku khilaafeen Haaruun iyo Maaruun asal ahaantooda inay ahaayeen bini'aadam ama malaa'ig, balse muuqaalkeena maanta waxaynu ku falanqeyn doonaa waxa ay kasoo wariyaan reer bani Israa'iil Haaruun iyo Maaruun, iyo culummada Islaamka waxii ay ka dhaheen. Waxaynu ku hormari doonaa waxa ay reer bani Israa'iil kasoo wariyaan Haaruun iyo Maaruun. Waxaase muhiim ah inaad mid xasuusnaataan in Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri, ha rumaysanina sheekooyinka Israa'iiliyaadka ah, waxay noqon karaan baadil aad rumaysane, hana beeninina, waxay noqon karaan xaq aad beeniseen. Balse inteena si toos ugu gudagelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga. Sida ay reer bani Israa'iil kasoo wariyaan Haaruun iyo Maaruunna waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Kadib markii ay arkeen malaa'igta caasinta ay bini'aadamka ku caasinayaan Alla weyne iyo dunuubta ay gelayaan, waxay Alla ku dhaheen, Ilaahayow, bini'aadamka waxaad u abuurtay inay ku caabudaan, balse waxay ku mashquulsan yihiin inay isdilaan dhexdooda iyo in midba midka kale uu wax ka xado. Taasina ma ahan ujeedada aad u abuurtay, ee sidee ku sameynayaan sidaas iyagoo adiga kaa baqeen, xitaa iyagoon kaa xishoonayn. Markaas buu Alla subxaanahu watacaala ugu warceliyey, idinkuba haddii aad joogi laheedeen booskooda, sida ay sameynayaan unbaad sameyn laheedeen. Markaas bay malaa'igtii ku dhaheen, Rabbigeeniyow, ma dhici karto inaynu kugu caasino sidooda oo kale. Allana wuxuu ku yidhi, haddii ayba sidaa tahay, iska soo saara 2 malag oo aan ku abuuro shahwada bini'aadamka, kadibna aan geeyo dhulka. Markaas bay malaa'igtu u doorteen in Haaruun iyo Maaruun lagu abuuro shahwada bini'aadamka, kadibna la geeyo dhulka. Allana wuxuu ku soo dejiyey Haaruun iyo Maaruun dhulka. Markii Haaruun iyo Maaruun la keenay dhulkana, waxay noqdeen kuwo mar weliba waqtigooda ugu badan ku qaata cibaadada Alle, waxayna magaaladii ay ku noolaayeen caan kaga noqdeen Alla ka cabsi iyo cibaadadooda badan. Waxayna kala xugmin jireen khilaafaadka dadka dhexdooda ka dhaca. Balse maalin maalmaha ka mid ah, Haaruun iyo Maaruun waxaa u timid gabar doonaysa in gar loo gooyo. Gartii ayayna u gooyeen. Muddo kadibna waxay dareemeen inay jacayl u qaadeen gabadhii. Ugu dambeynna way u tageen iyagoo doonaya inay ka sinaystaan. Balse markii ay u tageen, waxay ku dhahday, ma xuma arrintiina, balse waxaan wataa hal shardi un. Haddii aad shardigaas ka soo baxdaanna, wax weliba aad doonaysaan waan idin sameynayaa. Haaruun iyo Maaruun oo la fajacsan quruxdeeda, warkeedana aan u dhega lahayn, ayaa waxay ku dhaheen, oo muxuu yahay shardiga aad doonaysa inaan kuu sameyno? Markaas bay gabadhii ku tiri, shardigayga waa shardi aad u fudud, waana inaad ila caabudaan Ilaahayga. Markaas bay Haaruun iyo Maaruun ku dhaheen, ma waxaad leedahay ilaahaan ilaahayna ahayn? Gabadhii ayaana ku jawaabtay, haa, ilaahaan ilaahiina ahayn ayaan leeyahay, ilaahaygana waa kaas, iyadoo farta ku fiiqaysa mid ka mid ah asnaamta ay caabudo. Haaruun iyo Maaruun oo aad uga carooday arrinta ay gabadha ula timid ayaa waxay ku dhaheen, ma caabudayna cid aan Alla weyne ahayn, wayna isaga soo tageen. Balse muddo markii ay moogaayeen, ayay dareemeen in uu ku sii siyaadayo jacaylka iyo xiisaha ay u qabaan gabadhaas. Waxayna go'aansadeen inay mar kale u tagaan. Markii ay u imaadeenna, gabadhii waxay ku tiri, waan la socdaa in shuruuddii hore ay aad idinkugu adkeyd, balse hadda waxaan wataa 3 shuruudood. Haddii aad mid ka mid a samaysaanna, waan idin aqbalayaa. Haaruun iyo Maaruun oo markaani la yaaban ayaa waxay ku dhaheen, soo daa 3 shuruud. Gabadhii ayaana ku dhahday, shuruudda koowaad waa inaad caabudaan Ilaahayga. Shuruudda labaadna waa inaad qof dishaan. Shuruudda saddexaad ahna shuruudda ugu dambeysa waa inaad khamro cabtaan. Wadahadal dheer kadibna, Haaruun iyo Maaruun waxay go'aan ku gaareen inay cabaan khamriga. Waxayna cabeen khamrigii, gabadhiina way isku dhiibtay. Iyagoo faaxishada iyo sinada ku jirana, waxaa arkay qof bini'aadama. Haaruun iyo Maaruunna waxay ka cabsadeen in sirtooda la fashilo ama dadka kale loo sheego waxa ay sameynayeen. Markaas bay dileen qofkii, kadibna waxay xaqiiqsadeen inay ku dhaceen dunuub. Waxayna go'aansadeen inay aadaan samada, ayna ku soo noqdaan sidii hore ay ahaa jireen, yacni inay noqdaan malaa'ig macsuumiin ah. Balse ma aysan awoodin inay ku noqdaan sidoodii hore. Waxayna ka yaabeen in si fudud aanan lagu xakameyn karin shahwada bini'aadamka. Malaa'igtiina markii ay arkeen dunuubta ay ku dhaceen Haaruun iyo Maaruun, waxay bilaabeen in Alle ay dembi dhaaf u weydiiyaan bini'aadamka. Haaruun iyo Maaruunna Alle wuxuu kala doorsiiyey 2 midkood oo kala ah in lagu cadaabo aakhiro iyo in lagu
cadaabo adduunyada. Haaruud iyo Maaruudna waxay doorteen in lagu cadaabo adduunyada, waayo adduunyadu waa mid dhammaanaysa, balse cadaabka aakhiro ma aha mid dhammaada. Ilaa haatanna reer bani Israa'iil waxay sheegaan in lagu ciqaabayo Haaruud iyo Maaruud god dhexdiisa, iyagoona lugahooda kor u xiran yihiin madaxoodana oo hoos jiro, waxayna cadaabtaasi iyo ciqaabtaasi ku jirayaan ilaa maalinta qiyaamaha. Intaasina waxay ka mid ahaayeen sheekooyinka Israa'iiliyaadka. Haatanina waxaan eegaynaa wixii ay ka dhaheen culummada muslimiinta. Xilligii Nebi Suleymaan, shayaadiintu waxay war ka soo xadi jireen samada iyagoo iskor fuulaya si ay u gaaraan samada. Halkii hadal oo ay soo maqlaanna waxay ku dari jireen 99 hadal oo been ah, waxayna hadalladaas u sheegi jireen dadka. Markaas bay dadku u malay jireen in shayaadiintu ay eg yihiin qeybka iyo wixii dhici doona mustaqbalka. Xitaa dadku waxay moodayeen in Nebi Suleymaan uu yahay saaxir, Allana uu ku caasiyey, sidaasna uu awood ugu yeeshay inay u adeegaan dabeelaha iyo jinka. Markaas buu Alle u soo dejiyey Haaruud iyo Maaruud si ay dadka ugu caddeeyaan waxay arkaan inay yihiin sixir iyo inaysan ahayn wax sixir la xiriira. Haaruud iyo Maaruudna dadka waxay bareen sixir ilaa dadka ay ka ogaadeen in sixirku uu yahay wax la baran karo balse uusan ahayn wax waxyi ah. Waxayna Haaruud iyo Maaruud dadka ku dhihi jireen, waxaynu nahay fidno iyo imtixaan xagga Alle idinkaga yimiday, sixirkuna waa gaalnimo, sidaa aawadeed waxaan idinkaga digaynaa barashada sixirka, kuna gaalowdaan Allihii idin abuurtay. Qofkii iska daaya sixirka oo aan baran waa uu badbaadayaa, balse qofkii aanan u aaba yeelin digniintoodaas oo ka dalbada in uu baro sixirka, waxay bari jireen qayb ka mida sixirka oo ay ka mid yihiin kala geynta nin iyo xaaskiisa. Haddaba Haaruud iyo Maaruudna malaa'ig bay ahaayeen. Si guud arrintan waa mid laysku khilaafsan yahay, balse waxay u badan tahay inaysan ahayn malaa'ig, sidii uu Ibnu Kasiirba sheegay isagoo daliishanaya aayaddan. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm, lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard, man dhal ladhii yashfa'u 'indahu illaa bi'idhnihi, ya'lamu maa bayna aydihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiituuna bishay'in min 'ilmihi illaa bimaa shaa'a, wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal ard, wa laa ya'uuduhu hifdhuhumaa, wa huwa al-'aliyyul 'adhiim.